Assalaamu calaykum dhammaan walaalaha ku xiran kanaalka Theory waad salaaman tihiin waxaana idin leeyahay Ramadaan Kariim Ilaahay hanaga aqbalo acmaasha wanaagsan insha Allah waxaan isku dayi doonaa caawa in muuqaalkan aan ku sharaxo xeerarka wadooyinka iyo nidaamka kala saraynta ay leeyihiin maadaama aan soo baranay casharadii ahaa boorarka calaamadaha wadada haddeertan waxaan baranaynaa insha Allah ama aan sharaxi doonaa xeerarka wadooyinka iyo nidaamka kala saraynta ay leeyihiin insha Allah haddii aan bilaabo cashirkeena ama muuqaalkeenaba The Verkeersvoorschriften xeerarka wadooyinka hebben waxay leeyihiin een hiërarchische volgorde hiërarchische kala sarayn nidaam kala sarayn volgorde oo isku xigxiga waxaana loo kala qaybshay 4 nidaam nidaamka koowaad ama heerka koowaad the bevelen van een bevoegde persoon awaamirta uu bixinayo qofka loo ogol yahay qofka awoodda loo siiyey inuu bixiyo qof caadi ah ayaa noqon kara sidoo kaleete askariga caadiga ayaa noqon kara sarkaalka booliska ah heerka labaad ama nidaamka labaad the verkeerslichten nalalka trafikada ayaa galayo ama ishaarooyinka heerka saddexaad ama nidaamka saddexaad the verkeersborden boorarkii ama calaamadihii aan soo qaadanay ayaa ku jira nidaamka ama qodobka afaraad oo noogu dambeeya the verkeersregels xeerarka wadada oo aanan ahayn insha Allah boorarka aanan ahayn ishaarooyinka aanan ahayn askari yacni xeerka ugu hooseeya haddii meesha uusan verkeersbord aysan lahayn haddana nalkii uusan lahayn askarina uusan joogin waxay ka dhigan tahay xeerkaas aad ku dhaqmaysid oo ah verkeersregelska sida qof dhanka midigta kaaga imaaday in aad horumarsiiso ama aad horeysiiso waxaa isku dayaa in hal aanu sheego insha Allah xeerka koowaad the bevelen van een bevoegde persoon awaamirta uu bixinayo qofka awoodda u leh sida qof caadi ah ama askarigaba awaamirta qofka la ogol yahay sarkaalka booliska hadduu qof loo siiyo ogolaansho awood loo siiyo inuu ku istaajiyo ama uu ku amraba waxay ka dhigan tahay in amarkii aad qaadato hadduu rabo askari ha ahaado ama hadduu rayuusan ahaan waana awoodda ugu sareysa hadduu meesha xeer jiro hadduu yaalo boor hadduu yaalo ishaarooyinkii laakiin askariyaa jooga askariga amar ku siiyey ku dhahay istaag waana istaagtaa yacni xeerarka kaleeto dhan waxaa ka awood badan awaamirta uu bixinayo askariga insha Allah waxaa ugu hooseeya saasaan soo sheegnayba xeerarka caadiga ah waxaa ku xigo boorarka waxaa ku xigo waxaa loo yaqaano nalalka trafikada ama ishaarooyinka ayaa ku xigo waxaa ugu sareeyo awaamirta booliska ay macnaha bixinayaan kan labaad the verkeerslichten waa nalalka trafikada ama ishaarooyinka loo yaqaan haddii meesha uusan joogin askari laakiin waxay leedahay nal ishaaro so ishaarada waxay ka awood badan tahay boorarkii calaamadihii iyo sidoo kale xeerarkii caadiga ahaa hadduu ishaaro meesha ay leedahay waxaa ku khasban tahay amarada kale dhan inaad iska dhaafto aad qaadato amarka ishaarada ay ku siinayso waa kii labaad kan saddexaad the verkeersborden calaamadihii aan soo qaadanay ama calaamadaha wadooyinka amaba loo yaqaano boorarka waa xeerka saddexaad boorarka wuxuu ka awood badan yahay verkeersregelska
ama xeerarka caadiga ah ayuu ka awood badan yahay. hadduu meesha boor yaalo waxay ka dhigan tahay markaa in xeerarka caadiga ah uusan ku khusaynin ay tahay amarada ama xeerka boorarka aad ku dhaqmayso. midka noogu dambeeya insha allah oo ahaa the verkeersregels xeerarka wadooyinka ama sharciyada wadooyinka ama sharciyada gawaarida. haddaan taa sharaxno insha allah op een kruispunt waar isgooskaasoo geen bevoegde persoon is uusan joogin askari ama qof u haysta ogolaansho awood u haysta inuu ku istaajiyo en waar geen verkeerslichten staan meeshaasoo aanan oolin ishaarooyinka en ook sidoo kale geen borden die de voorrang regelen boorarkii hagayana mudnaantana aanan lahayn waxay ka dhigan tahay markaa meeshaas wax loo yaqaano geld the voorrang van regels waxaa khuseeya marka waa mudnaanta dhanka midig gaadiid walbo kaaga imaada dhanka midigta ah ayaa mudnaanta kaa leh. xeerarka wadooyinka caadiga ah waxay ka dhigan tahay markaa ay tahay macnaheedaba voorrang van rechts ciddii kaaga timaada dhanka midig inay kaa leedahay ama sidoo kale recht doorgaande verkeer op dezelfde weg gaat voor adigoo saaran wado ama isgoos jooga isgooska dabcan wuxuu leeyahay laba wado ka imanaysa dhinacyada iyo wado ka hor imaanayso haddii wado ka hor imaanaysa ay jirto qofka ka hor imaanaya iyo adiga qofka leexanaya iyo qofka toosaya leh macnaheeda. sidoo kale kort bocht gaat voor lang bocht haddii qofka ka hor imaanayo uu rabo inuu u leexdo dhankiisa bidix adna aad rabto dhanka midig inaad u leexato waxay ka dhigan tahay adiga ayaa waxaa leedahay bokhtiga yar ama waa bokhtiga gaaban ayaa leedahay koorta bokt waxaa loo yaqaano amaba goolada yar qofka lang bokhtiga leh waad ka leedahay amaba goolada dheer leh. kijk je de voetganger in de nek qof soconayo qoortiisa mad arkaysaa of het gezicht ama wejigiisa mad arkaysaa dan is voor laten gaan bij afslaan verplicht haddii qof lugaynayo ad aragto waxay ka dhigan tahay haddaad dhabarkiisa ama qoortiisa arkaysid ama waa arkaysid wejigiisa oo adna aad leexanayso in asna uu kaa leeyahay qofka soconayo. sidoo kale voorrang van rechts mudnaanta dhanka midig aa loo yaqaanaa voorrang van rechts is van toepassing bij ongecontroleerde kruispunten mudnaanta dhanka midigta waxay khusaysaa isgooska aanan isgoos aanan laga helin control. dat is een kruispunt isgooskaasi waa isgoos waar het verkeer niet begeleid wordt door verkeersborden waa isgoos aanan lahayn boorar lahayn aanan lahayn wax loo yaqaano wegmarkeerina calaamadaha waddada of verkeerslichten oo aanan lahayn ishaarooyinkii. bij zo'n kruispunt isgoos noocan oo kale ah moet alle bestuurders waxay ku khasban yihiin qof walbo wata gaari ama daro walba ah voorrang geven inuu siiya mudnaanta aan voertuigen gaadiidyada die van rechts komen oo ka imaanaya dhanka midigta. haddii aad tahay qof gaari wata ama baaskiil ama mooto amaba ah qof wax wadaya haddii aad tahay darawal haddii aad tahay aadna joogto isgoos aanan xeer dhan jirin boor jirin nal jirin waxay ka dhigan tahay gaadiid walbo kaaga imaada dhanka midigta ina siiso. voorrang van rechts mudnaanta dhanka midig is the basisregel waa xeerka oo bayska ah xeerka asaasiga ah aan is geldig wuxuuna khuseeyaa als er geen verkeersborden of wegmarkering zijn wuxuuna khuseeyaa amaba uu shaqeynayaabo haddaysan meesha lahayn boorar iyo ishaarooyinba. haddii tusaale aan ka bixino marka forbelt waxa waaye tusaale ahaan sawirkan dhanka bidixda waa isgooskii weeyaan insha allah
isgoyskan marka waa isgoys loo wada siman yahay boor ma laha ishaaro ma lahan askari ma joogo qof walbo ama gaari walbaba gaariga dhanka ooga imaada dhanka midigta ooga imaada ayuu siinayaa waxaa loo yaqaanaa marka foran farex mudnaanta dhanka midig tusaalaha labaad hadduu boorkan yaal isgooska boorkan loo yaqaano rival crispunta loo yaqaano hadduu yaalana wada same waxay ka dhigan tahay asna in wadadan ay khusayso foran farex mudnaanta dhanka midig waxaan rajaynaya insha allah in oo aad ka faa'iidi doontaan hadduu ilaahay idmo halka ayuu ku egaa cashirkeena ama muuqaalkeena maanta asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakatu